puntland waa isku dhacdeen xagga waxbarashada iyo shahaadooyinkaas kaga dhacdeen xal ma loo helay khilaafkiinii xaaladdu waa sidee imika wasiir ma aqaan waxa isku dhacid la yiraahdo ana ma fahmi karo laakiin waxaan ku kala aragti duwanaanay muxuu ahaa imtixaanka fasalka 12aad gelitaankiisa puntland positionkooda aragtidoodu waxa weeye inay yiraahdaan imtixaanka annaga qaadanayno wasaaradda muxuu ahaa waxbarashada dhexe muxuu ahaa oo imtixaanka agaasinto ma rabno inay aan wax la wadaagno inaan macluumaadka ardayga u sheegno annaga waxaan isagaasimayno qofkii aan niraahno waa baasi shahaado siiye annagana waxaan niri kaas macquul maaha marka in ay iyagu ismaamulaan oon annaguna keliya noqonaa rubber stamp oo shahaado keliya bixiyo macquul maaha in aan muxuu ahaa puntland shahaado siino aysan shaqaysan lamida midkii shaqaystay iyadana fair ma aha wax badan aan isla soo marnay wax badan oo fargaraynay xataa inay iyagu agaasimaan laakiin annagu aan supervise garayno ma ogola xal ma loo helay wasiir marka imika xal ma loo helay maya xal looma helin puntland ayay sheekadu agtaallaa inay ummadda soomaaliyeed la mid noqdaan oo imtixaanka la galaan oo shahaadada ay qaataan la qaataan haddii iyagu ay aaminsan yihiin in muxuu ahaa ka quality fiican yihiin kuwa kale haddee buundayaashu waaweyn ay qaadanayaan waxay ka walwadaan ma jirto laakiin marka aad shahaado suurku waa inaad shaahid ka noqotay waxaadan hubin oodan ogeyn mana samayn karna xaqiiqdii waa in imtixaankaas ay galaan ama ay isku filnaadaan shahaado soo raadsan wax ka dhexeeya lama